السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن لبعض وعن صاحب يال ميل البض جوكتان والسلامتين عافماد قب iyo nabadqab aad rajeynaya intaas ka bacdi haday ku tahay markii ugu horeysay fadlan subscribe saar like na ku dhifo sina share kare maasanid intaas ka bacdi waxaan muuqaalka yar kooban kaga hadlaynaa insha Allah taala oo si guud isku dul taagi doonaa kicidda aroorta hore amba kalahada waxa la yiraahdo laba dhanbaan iska istaagi doonaa oo ka joogsan doonaa ka fiirin doonaa waa dhanka aqoonta iyo waxbarashada iyo dhanka arsaaqada iyo maalka horta waqtigan kalahadu waa wixii subax ka horeeya niska dambe habeenkii ilaa salaada subax weeye qofka xilligaas rakaca iyo qofkan xilligaas rakacini iyo horta iskuma dhawo oo farq weyn baa u dhaxeeya xilligan xataa quraanka la akhriyay marxaati kacwiyi sidii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay in quraan al-fajr kana mashhuuda hadaba dhanka koobaad iska taagi doona dhanka aqoonta dhammaan culimada xifdiga iyo aqoonta oo ugu horeeyeen culimada islaamku taabiciintii saxaabadii ilaa xilligii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waxa isku waafaqay in waqtigan yahay waqtiga xifdiga oo waqtiga naftu degan tahay calooshu aanay buuxin dhiiga inta u badan maskaxdu qaadanayso wax buuqa ma jiro oo de marka waagu bariyo ee dadku shaqo tagayaan baabuurtii baa wada qaxiimaysa mishiinadii shaqooyinkii baa loo furaya marka waqtigan waqti degan weeye dadku inta badan ay iska hurdaan xifdiga aad buu fiicantay xilligaasina dadkii saameynta lahaay ay xifdin jireen oo wax baran jireen oo mataqaan cilmiga daalacan jireen oo cilmiga raacan jireen oo waqti ka faa'iideysan jireen way qodobka labaadan ka eegin waxa weey dhanka arsaaqada xadiis baa jira nabigu kaleeyhi salaatu wassalaam barakallahu ummati fi bukuriha ilaahay ummadada ha u barakeeyo ilaahay ummadada u barakeeyo xadiis macnihiisu yahay kalahada iyo kalahayga oo sir baa ku jirta waxa nabigu ugu duceeyay bay qabtaayo sir nabi iyo duca nabi baa ku jirta oo xataa nahyi karaahiya ku soo aroortay in bacda saa subax la seexdo oo waqtiga arsaaqadu ay furan tahay qofku inuu hadduu xataa camal aanu hayn inuu iska kalaha aroorti iska socdo amba iska jimicsado meelaha iska mijabaxsado soo socdo lacagad ku kululaanayso aanu qofku seexan ayaa loo baahan yahay ka walaalayaal qofkii arsaaq doonaya qofkii cilmi doonaya kalahada ha ogaado